وواجباتكي ونفري مدحوينين دولة goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen ayaa amarkiisa ahayd in cashuurta dowladda hoose la dhiso la isku xiro shaqadiina si rasmi ah maanta ay u bilaabatay amarkii anagoo fulinayno goobihii loogu talagalay shaqada in laga qabtana shaqadii waa u fasaxnay saakin shaqadii way ka socotaa dowladda Afgooye dhammaan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo aad gacan ugu siiyay si ay hawshaas u qabsoonto waan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ku xigeenadiisa aad ugu faraxsanahay shaqada maanta aan bilownay inta dhimanna insha Allah waa dhamaystirmi doonaan goobo kale oo cayiman ayaa jiro oo weli aan anaga nagu soo wareegin oo hadda aan sugayno inay nagu soo wareegaan kordhow insha Allah laakiin hadda wixii ugu muhiimsanaa ayaan gacanta ku dhignay waana bilownay shaqadiina maanta waa fasax waa furan tahay waana qabanaynaa amarkiina waa qaadanay insha Allah madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa goobihii kale iyo shaqooyin badan oo dowladda hoose ay leedahay ayaa maqan waxaan rabnaa in dibna lagu soo celiyo maadaama bilicdii magaalada aan soo celinay nadaafadii magaalada aan wax ka qabanay webigii qashinka ku jiray aan ka saarnay oo haddana aan aarjino u samaynay webiga si fatahaadda ay dhacdo difaac loogu galo intaasna anagoo isxilqaan aan samayn aniga iyo shacabkeenu anagoo wada soconaan qabsanay haddana meel fiican ay noo maraysaa haddana waxaan jecelnahay goobo kale oo rabto jidad in loo sameeyo waxaan rabnaa dhaqaalihii dowladda hoose naga soo galo inaan u kala saarno in qaarna dib u dhis ku samayno qaarna ee dadka tawaalaysan ee masaakiinta sida xuryaamada indhooliyaasha ee nidaamka dowladda hoose oo aan jiray isboortiga laga bixin jiray dadka indhooliyaasha wax la siin jiray agoonta oo xerooyinka ku jiro waxbaa laga sii jiray dowladda hoose waxaan rabnaa sharcigii lagu shaqayn jiray ee dowladda hoose ayaan dib u soo noolaynay maanta laga bilaabana sharcigaasaa lagu dhaqmi doonaa degmada Afgooye cid allaale ciddii soo gaartay shaqadaas waa inay meesha ay joogto ay ka talaabo qaadaan mar labaad madaxweynaha halkan ka salaamaa insha Allah waxaan leenahay madaxweyne khayr Allah ku siiyo hawsha aad qabatay iskoolaad badan sabiidii caanoola ka dhistay waxaasoo dhan amarkaaga lagu dhisay waa mahadsan tahay degmada Afgooyena waa kaaga fadhisaa tuulooyinka la jiro sida ceelasha Afgooye dhexdeeda wax badan baahiyaal badanaa ka jiro inaad haddana noo soo dirtay hay'adaha si ay noo soo gaaraan aan dadkan iskoolada lacagta ku dhigto in laga joojiyo iskool inay lacag ku dhigtaan dad free iskool free in la helaa la rabaa insha Allah markana waxaan kusoo wareejinayaa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose anigu fulin awaamirtii madaxweynaha dowladda goboleedka bismillaahir rahmaanir rahiim anigu fulin awaamirtii madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen oo ah in la hagaajiyo oo dowladaha hoose ee canshuuraadkaas in la bilaabo maasha Allah anaga maamul gobol ahaan aan haddaan ahay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka maanta waxaan ku daahfurnay degmada Afgooye shuruucdii oo gobolka oo in la habeeyo canshuuraha dowladda hoose maasha Allah maanta waxaa nasiib u yeeshatay awaamirtaas inay fuliso degmada Afgooye maasha Allah waa degmadii oo nasiibka u yeeshatay inay awaamirta ay fuliso oo maanta dowladaha hoose wixii oo awaamirta shuruucda oo canshuuraha ku saabsan ay hana qaaday maasha Allah degmada Afgooye oo haqalinaya awaamirta inay fulisay maasha Allah haddana waxaan usii socnaa degmooyinka kale oo gobolka maasha Allah kale waa inay awaamirtaas fuli doonaan aan sii jeclaan lahaa maasha Allah horta waxaan u hambaliyanayaa gudoomiyaha degmada Afgooye oo hana qaaday nidaamiyo dowladaha hoose maasha Allah hambaliyo gudoomiye ilaahay baa mahad iska leh awalan maanta oo taariikhdu tahay 31 bishii 7 2021 waxaan ku sugannahay degmada Afgooye annagoo maamulka gobolka iyo maamulka degmada Afgooye runtii shaqo aad culus baa waayahan ku jirnay oo gobolka ugu weyn gudoomiyaha gobolka waa BCD oo ah in aan muxuu ahaa gobolka ka
ka fulino waajibaadkii uu bixiyey madaxweynaheena cabdicasiis uu bixiyo oo ahaa in muxuu ahaa degmo walba iyo muxuu ahaa tuulo walba in laga hirgeliyo sharciyadii ama systemkii dowladnimada ah in laga hirgeliyo amaamiirtii guud oo na soo faray madaxweynaheena koonfur galbeed cabdicasiis uuna usoo dhiyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir Sidiiq maanta oo ay taariikhdu tahay 31 waxaan ka bilownay degmada Afgooye annagoo aad iyo aad runtii u mahad celinayna gudoomiyaha degmada iyo deegaanadiisa degmada Afgooye sida ay muxuu ahaa u fuliyeen amaamiirtaas ka soo baxday muxuu ahaa madaxweynaheena soona martay muxuu ahaa gobolka oo ugu sareeyo cabdiqaadir Sidiiq gudoomiyaheena gobolka shabeellada hoose runtii waxaan leenahay gudoomiye aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa maanta haddii aad xarigi jirtay canshuurtii ama muxuu ahaa xaruntii degmada Afgooye ee dowladda hoose annaguna ka gobol ahaan maanta waa kula xarig jirnay laga bilaabo maanta waxa weeye degmada Afgooye waxay leedahay system dawliya waxay ku shaqaynaysaa nidaam dawliya waxay ku shaqaynaysaa kala dambeynta iyo borotokoolkii dowladnimo oo uu na faray madaxweynaha waxaan kaa codsanayaa inaad adiguna sidaas u adkayso oo sharciyadaas aad ilaalisid maamulka haddii mas-uuliyaddiisa adiga unbaa ugu sarreeya degmadan ciddii wax tabanaysa inaad ka daaweyso ciddaan wax tabanayn in waajibaadka aad inay qaadato إن شاء الله تعالى وقوها بلينا وحن نعطي بدوني كوبات وواجبات مدحوينهم أوبحي نكي كوبات وفليي هذه ونور إن شاء الله تعالى أنا وأنا قوة عمل مريض والله قال إدمو أنت كدب وحن فرق يا مركز لنا أبني جولك أنا بدي ماذا أفجوي دمان وحن بعد سنة إن لا شقيه واجبات كسان بحنيت وعن سنة ماذا أفجوي إن لغش شقيه إن لغش شقيه لنا الشقيه لنا أبني جنا واجبات شيرنا إن شاء الله شرنا والله قاعد دونا أرنتا سعة عن هوها وتفكير دونا والله قاعد دونا دي هاي مو أدي أنا قوهم بلينا جديا أنا وحنا نقول تعالى حلوين وحنا نسوي بالموين كلا وحنا نسوي قبل كل ده ما نسوي ما أنت وحوي وش أسي قبل ناس قاعدتي أنا جنا الشرف كنا أحكي قبل هان أدي أنا كده جمعها ولاد قوة أنا ورا كويس ودويننا وأنا قوة شغالنا وأنا قوة عن سيننا هذه أنا الأمة صنتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.